Suldaan Bilar Rafle Guuleed oo madax ka ahaan jiray goboladii waqooyi xilligii dawladii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo markii uu horeysay ku soo laabtay magaalada Hargeysa isla markaasina dhameystay socdaal sharafeed oo ku joogay Somaliland ayaa isagoo si gaar ah ugu warramay telefishinka Hon Cable waxa uu mahad celiyay shacabka Somaliland ee soo dhaweynta uu muujiyay meeshan hadda bil baan joogay inaan dadka waana la hadlay oo 22ka bishaas inta waa khudbaynay waa hadlay laakiin inaad mid dardaarankii ugu dambeeyaan ilaaho maadaama aan berita dhoofayo weeyaan waxa way horta awalan qabla kullu shay waxaan mahadnaq iyo amaan u jeedinayaa shacabka Somaliland qaybihiisa kala duwan iyo goboladiisa iyo madaxdiisa iyo minjihiisaba sidii aad u qiimaha badnayd ee Soomaaliya oo dhan ay arkaysay ee la isoo dhaweeyay Suldaan Bilar Rafle Guuleed waxa uu meesha ka saaray wararka sheegaya xilligii mas'uulka u ahaa inuu gubay taariikh muhiim ahayd oo dawladda Ingiriisku ay kaga tagtay magaalada Hargeysa arintaas oo gabi ahaanba uu beeniyay wax run ama adiga ma kula tahay ducaalow iyo dadka maqlayaba ma idin la tahay miye baalkii gurigii dhaqanka ee ugu quruxda badnaa oo foom aqal Soomaaliya u samaysan oo hadda yaala ninkii dhisay hidaha iyo dhaqanka iyo taariikhda u dhisay inuu xaashiyo gubayo iyo taariikh meedna tahay aqli ma keeni kara Ingiriisku wuxuu kaga tagay meesha guriga gobernatoraha laga dhisay dhinaciisa laba maqsin oo yar yar oo bulukeete aha ayuu arkiivyo ka dhigay arkiivyada waxa galay aboor in 70 sano 80 sano 100 sano baa laga joogay intoodii badnaa waxay noqdeen xash oo aboorkii cunay iyo boorkii wixii intaan boorkii ka jafnay markaan guriga dhameynay hal xaashi oo ama la tuuray ama seelin waa la gubay midna ma jirtin ee wixii oo dhan iyagoo dhisan oo aan qaar dib u ka kabnay ayaanu dhignay museumka waana la ogaa 5 qaybood buu u qaybsamaa Axmed Gurey baan ka soo bilownay taariikhda Axmed Gurey ka soo bilownay tii Ingiriis oo sidoo dhulkan ku qabsaday sidoo waqooyi ku qabsaday ama Somaliland ku qabsaday sidoo xagga ku qabsaday wax walba oo dhan Talyaani markuu yimiday hada wixii naga iska gubnay waxaan ugu sameeyay laakiin inaga dib isaga gubnay Soomaa anigu ma gubin anigu waa xanaanay waana geey warjinana ma ahayn markale Bilar Rafle Guuleed waxa uu ka warramay waxyaabihii xiise galiyay ee uu kala kulmay intii socdaalka Hargeysa uu ku jiray waxaana uu soo hadal qaaday booqashadii uu ku tagay xaruntii tiyaatarka Hargeysa oo dib u dhis lagu sameeyay waxaana uu ku horeeyay sababta marka horeba ka dambeysay dhismaha tiyaatarka Hargeysa maadaama halkan waxa meeshii walaalaha Hargeysa ka asaasmeen oo ahayd inay helaan center ayaan u dhisnay meesha la iskama sameeynin wuxuu raahaa tiyaatar aad u qurux badan kana weyn tiyaatar jiray 2500 ayuu ahaa oo kursi nasiib wanaag waxa lagu yiri waa dumay laakiin waxaan ogaaday inay uusan dumin nin Umar Aydiid leeyahay wiil Fariida ayaan meesha ugu tagnay oo tiyaatarkii dib u dhisay oo hadii ilaahay marun ahaantii kordhiyayna kuraasidii kordhiyo ilaa 3 kun noogu sheegay inay noqonayso waxa intaas oo dhan iga farax badnayd oo waxyaalaha aan ku maqsuuday imaanshayga halka kamid ahayd ninkii waxa oo mashaariica ila dhisay ee foremanka ka ahaa ama engineerka ka ahaa ee saaxiibka ahaa oo sidii aan doonayay waxaan waligay hawl aan u tilmaamay sida aan rabay u fulin jiray oo awood u yeeshay inuu tiyaatarka isagu dhiso isagoo waxba haysan qalab ayaan muddo raadinayay marka waan helay gurigiisii baa la sheegay gurigiisii baan raadiyay oo ugu tagay insha Allah mas'uulkiisana waa arki doontaa ninkaas haddii farxad iiga weyn maalintaas ma jirin inkastoo uu hadda noqday oo uusan nin socon kara ahayn markaan waa bile oo isku ooynay labadanadu taahota farxadda taas ay ugu weyneed ugu dambeyntii Suldaan Bilar Rafle Guuleed waxa uu soo jeediyay talooyin khuseeya wada noolaanshaha ummadda Soomaalida meel kasto ay joogaan waxaan u soo jeedinayaa talo
shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogaanba horta Soomaali waa dad wada dhashay oo rixim ah oo walaal ah wax kala jarjari kara ama riximkooda iyo qalbigooda taaban karaan ma jiro waxaan ka hadlahayaa waxa weeyaan ehelka iyo rixinimada weeyaan ama ha jooga Djibouti ama ha jooga hadii la Soomaalida Itoobiya jirta ama ha jooga xagga iyo koonfur ama Soomaaliya jira ama ha jirta kuwa NFD jira ama ha jirta kuwa Somaliland ama meel kastaba jooga ha joogaane Soomaali waa cunsur kaliya isku wada dhalay oo walaalo ah ninkii siyaasad lahu ha ka daayo inuu madaxa isugu dhufto siyaasad waa la isku qaban karaa waana laga heshin doonaa wax meeltay haya ma aha shacabkaas ma kala go'ayo isku mid weeye ruuxim weeyaan mid walba riximkiisa weeye marka hal la ilaaliyo taas baan anigu sheeginayaa madaxda waraysigan oo intani ka faahfaahsan waxaad kala socon doontaan telefishanka Home Cable waqtiyada soo socda waxaana Suldaan Bile Rafle Guuleed uu kaga hadlayaa waxyaabaha uu kala kulmay magaalooyinkii uu booday ee Somaliland Cabdishakuur Dayib Maxamed Home Cable TV Hargeysa